في wanaagsan idil ahaantiin baa qiyaartayna la jaan qaadaysa meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada STN iyo barnaamijka bandhiga oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhaxaan ku leenahay magaalada Nairobi waxaan idin la socodsiin doonaa tusmadan anigoo Cabdulcasiis Barrowa magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay dad fara badan oo Soomaaliya ayaa indhaha ku hayay iyadoo ay socotay qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya soddonka bishan ayaa loo asteeyay doorashadaasi in la qabto sidii la qorsheeyana maanta doorashadaasi ayaa dhacday waxaa isku soo taagay jagadaasi 11 xubnood laakiin intii aan doorashada la aadin ayaa waxaa durbaba iscasilay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inuu ka tanaasulay rabitaankiisii ahaa inuu jagadaasi isku soo taago 10 xubnood ayaa halkaasi ku loolamay waxaana wareegii labaad isku soo haray dhowr ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee guusha ayaa waxay ku raacday wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii uu ka guuleystay Ibrahim Isaaq Yarow gudoomiyaha cusub ee guuleystay Mursal ayaa helay 147 cod halka ninka laga guuleystay Ibrahim Isaaq Yarow oo helay 118 cod taasina waxaa la sheegay in halkaasi uu ku guuleystay gudoomiyaha cusub ee Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan barnaamijka bandhiga ayaa guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay hanaanka doorashadaasi oo arkaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada gudoomiyaha cusubna ma noqon doona mid la shaqeeya xukuumadda oo la sheegay in gudoomiyihii hore cadaadis uu kala kulmay bandhiga ayaa guud ahaanba arrintaasi ku falanqeyn doona laakiin intii aan u gudbin dooda martida bal marka hore nala daawada qaabka uu jawiga ahaa iyo waliba sida loogu dhawaaqay doorashada iyo gudoomiyihii guuleystay mudanihii la tartamayaba khudbadihii ay jeediyeen مدن علي موروين على دقيقة نتيجة كده واقعين هذيكم معسن على فريسة نتيجة كده واقعين هذيكم معسن نتيجة كده واقعين هذيكم معسن دقيقين ناماهية بكل احترام دقيقين ناماهية هذيكم معسن waxaa codeeyay 265 ayaa codeysay 265 ayaa codeysay mudane Ibrahim Isaaq Yarow wuxuu helay 118 mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan wuxuu helay 147 waxaa ku guuleystay gudoomiyaha golaha shacabka mudane محمد مرسل عبد الرحمن هذا وحن كسر وين يا ميكروفون إبراهيم إسحاق يرو تفضل مولانا هل دقيقة مولانا هذا يهديكم هلا دقيقة مشرح هلا دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عن دقيقة مدنة عن دقيقة هلا دقيقة الله يهديكم فريسة فريسة هذا لا سعودة فريسة هلا فريسة واد مدن إبراهيم إسحاق يرو تفضل هلا فريسة عندك يسنو قدومية فدي هذا كتير نادي فدي مدن قدومية mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh goobjoogayaasha oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha maxkamadda sare guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka marti sharafta dhammaan bahda saxaafadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed
meel kasta ee nagala socota warbaahinta waxaan idinku salaamayaa ugu horeyntii salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudane guddoomiye mudanayaal ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee loo doortay walaalkay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaan leeyahay hambaliyo soo dhawow waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib mahad ballaaran u soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka Soomaaliyeed intii codkooda i siisay oo i dooratay iyo inta aan codkooda i siininba dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad muujiseen runtii dareenka golaha shacabka oo ka turjumaya dareenka shacabka Soomaaliyeed ayaad muujiseen tartanka wuxuu ahaa tartan muxuu ahaa dimuqraadi ah caafimaad qaba oo si xalaal ah u dhacay aniga ma aaminsani in la iga guuleystay laakiin waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa geedi socodka qarannimada Soomaaliya habkay u dhismayso ay guuleysanayso taasna waxay tahay sababta golaha shacabka Soomaaliyeed loo aaminay shacabka Soomaaliyeed ay ugu aamineen amaanada culus xilliga adag la joogo inay daadiyaan dareenka la muujiyay oo aan ka hadlayo waan wada garanaynaa golaha shacabka wuxuu u baahan yahay runtii midnimo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in muxuu ahaa checks and balances ama isdheelitirkii awoodaha dawladda la soo celiyo in muxuu ahaa baarlamaanka shaqada ballaaran ee u taala shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan oo dastuurkan uu farayo aan la ilowsanayn oo shacabka Soomaaliyeed aysan ilowsanayn wakiiladoodana ay dareenkaasi qabaan waxaad ka garanaysaan oo codaynta ayaad ka garanaysaan mudane guddoomiye soo dhawow aniga aan kaftamo runtii waan guuleystay oo waxaan ku guuleystay in muxuu ahaa dareenka shacabka Soomaaliyeed aan ka turjumayo dareenka baarlamaanka aan ka turjumayo dareenka wadajirkeena aan ka turjumayo waxaan diyaar u ahay inaan muxuu ahaa sida ay doorashadu u dhacday anoo raali ka ah la shaqeeyo guddoomiyaha cusub wixii afkaar aan hayay aan muxuu ahaa ku biiriyo in muxuu aan gacan ka geysto isku soo dhaweynta afkaarta baarlamaanka ay ku kala duwan yihiin in muxuu ahaa afkaarta iyo muxuu ahaa nidaamka ay wax ku socdaan inaan wax ku biirino oo wax positive ah wax dhisaya aan ku darno inaan gacan ka geysto ayaan muxuu ahaa idin ballan qaadayaa waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii cidda madaxda u ahaydna halkay muxuu ahaa iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbeddelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo way suuroobi lahayd haddana walaalkay baa ku guuleystay waan la garab taaganahay saasaad ogaanaysiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hana guuleeyo nabad waarta allahna siiyo sharaf iyo karaamad iyo haybada baarlamaanku uu leeyahay shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin allah noo soo celiyo faragelinta allah naga ajnabiga iyo muxuu ahaa midda dawladiidka allah naga yareeyo aniga waxaan dhihi lahaa hambalyo wixii hadala insha Allah iyo talooyina waxaan ku biirin doonaa guddoomiyaha cusub waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad intii ii codaysay oo golaha shacabka iyo intaan ii codayninba aad iyo aad baa u mahadsantihiin guddiga doorashada iyo guddoonkana waxaan ugu mahad celinayaa sida sharafta leh ee ay u daadiyeen oo muxuu ahaa nadiifka
aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay mudane ibraahim isaaq yarow sida wanaagsan ay ku jirto soomaalinimada uu u soo jeeyay hadalkiisa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kalimaadkiisa ku aadin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدومك برلمان كقلها شعبك قدوميها أقل كسره قدوميها محكمة سره حلبانا شرفت له صحافة مرتي شرفتك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan aan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta codkooda isiisay iyo inta aan isiin intaba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan musharaxiintii u tartamaysay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxaan u mahadcelinayaa iyana dhammaan saaxiibadayda iyo taageerayaashii igala shaqeeyay dadaalkii aan u soo galay kamid dhalinta tartanka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaal imarweyn xildhibaanada sharafta leh waxaad igu aaminteen mas'uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda anigana waxa aan ballan qaadaya in mas'uuliyadaasi aan u guto sida aad igu aaminteen mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh maalintii khamiista ahayd ee la soo dhaafay taariikhduna ku beegneed 26 bishan afraad waxa aan hortiina ka akhriyay barnaamij siyaasadeedkayga ku aadanaa gudoonka golaha shacabka barnaamijkaas oo ka koobnaa ilaa 10 qodob waxa aan mar kale idin xusuusinayaa inaan fulin doono dhammaan qodobadii ku xusnaa barnaamij siyaasadeedkayga iyo wixii kale ee quseeya arrimaha golaha shacabka gudashada mas'uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan aniga waxa aan markasta diyaar u ahay inaan dhageysto soona dhaweeyo dhammaan talooyinkiina la xiriiraya dhinaca gudashada mas'uuliyaddan qaran ee aad ii doorateen mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh waxa aan shacabka Soomaaliyeed hortiina ugu ballan qaadaya inaan ugu adeegi doono si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta anigoo ilaalin doona dastuurka ku meel gaarka iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay gudoomiyaha la doortay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay ayuu ahaa kaasi oo ka hor hadlayay kadib doorashadii markii la shaaciyay natiijada baarlamaanka hortooda maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku dhashay sida taariikhdiisa lagu helay magaalada Baydhabo waxaana waxbarashada dugsiga sare uu ku qaatay dugsi lagu magacaabo Sheekh Aweys isagoo ka bartay dhinaca adabka oo ku yaala magaalada Baydhabo sanadkii 2014 ayuu jaamacadda culumta iyo tiknoolajiyada ee Sanca ayuu ka diyaariyay cilmiga arrimaha bulshada halka culumta xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda uu ka dhigtay jaamacad ku taala dalka Uganda sidoo kale shahaadooyinka diploma ayuu ka haystaa tiknoolajiyada warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay taariikhdiisa oo kooban barnaamijka caaw waxa ila falanqeynaya stuudiyaha igula sugan isla markaana arrimaha hor yaala gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo waliba wada shaqeynta laga rabo dawladda inuu la yeesho qeybaheeda kala duwan ila falanqeynaya cali cabdi maxamed oo isaga ah siyaasi dhalinyaro ah iyo waliba axmed cabdi shakuul oo sidoo kale isna ah siyaasi dhalinyaro ah oo stuudiyaha iminka si toos ah igula sugan iyo waliba cabdulqaadir shaafici cabdullaahi oo isaga ah falanqeeyo siyaasadeed oo sidoo kale stuudiyaha igula sugan dhammaantood aad baad u mahadsantihiin waqtiga aad nasiisanayay sida barnaamijka uga qayb qaadanaysaan
haddii aan kugu bilaabo gele cali cabdi cabdulaahi hanaanka doorashadii maanta baarlamanku ay qabteen iyo weliba gudoomiyaha cusub ee soo baxay mursal ma ahayd mid la filan karay sida doorashada u dhacdana qabkee bay kula muuqanaysa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba haddaan soo noqdo su'aashaadii gudoomiyaha cusub ee la doortay waxay ahayd 2 asbuuc 3 asbuuc ka hor markii aan sii saadaalinay inuu iman doono maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka inuu noqon doono ummadda Soomaaliyeed guud ahaan inta fahmaysa arrimaha siyaasaddu sida u socdaan Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan Muqdisho iyo areadaas way fahmayeen inuu iman doono wayna saadaalinayeen maxamed mursal inuu soo baxayo qaabka uu baarlamaanku doorashadu ay u dhacday waxba kama duwaneyn siyaabihii hore loo qaban jiray waxay ahayd wax ku kooban baarlamaanka gudihiisii golihii baarlamaanka ka dhacay kana fududeed siyaabihii hore doorashooyinka u dhici jirtay aad iyo aad shakul ninkan soo baxay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wasiirka hore gaashaandhigga ayuu ahaa muddo koobanna xilkaasi uu hayay runtiina markii gudoomiye jawaari iscasilo wuxuu ka mid ahaa dadkii horeba sheegay inuu kursigan u taagan yahay isla markaana u tartamayo taasi oo dad fara badan inay la yaab ku sii noqotay markii uu iska soo casilay arintii uu ka hayay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya wasiirka uu ka ahaa hadda waa uu soo baxay maxaa la filan karaa baad isleedahay bismillaah wa bacd inta aanan waxa la filan karaa aanan eegin maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ambassadorkii hore Turkey waxaan maleynaa siyaasadda wuxuu bilaabay 2009kii xukuumaddii ku meel gaarkeed Umar Cabdirashiid oo ka ahaa wasiir kadib waxaa loo diray 3 sano iyo dheeraad Turkiga markuu soo noqdayna sida ogtii 6 bilood buu haddana wuxuu ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta oo si compromise inta looga saaray dowladdii Shariifka iyo South West ay soo riixeen markuu ku dhameystay bacdin xildhibaan buu noqday xildhibaanka kadib isla haddana wasiir gaashaandhigga oo booska iska casilay ayaa booskiisa lagu bedelay muddo koobanna uu hayay isku soo wada duubo dadkii mooshinka gadaal ka riixay oo seexay in la gudoomiye jawaari meesha laga diray ayuu ka mid ahaa keligiisna ma haynay 12 xildhibaan oo qabiilkiisa digri mirfle oo maanta tartamaysay markii laga reebay shaqada madooba oo bilowgii subaxnimadii sheegay inuu tartamaynin 10 kale tii asagaba waxay ka mid ahaayeen dadkii riixayay inuu meesha ka baxo jawaari si ay fursad u helaan ugu dambeyntii marka waxaa isku soo hartay 3 musharax ugu cod badneed 3 musharax nasiib wanaag waxay ka mid ahaayeen xukuumadda khayr marka waxay ku tusaysaa sheekadii ay gabdhii ku maamahay jireen oo ninba 4 naagood qabaal yiri moogta hadda ka hor Soomaalida marka waxay dhaheen yaa jeceshahay maanta noo sheeg ninkii tala ku cagaarantay gabdhii isku soo horjeedo mushkil kara inuu mid jecel yahay waa iska ogyahay marka wuxuu yiri si joostaan idin sheegay 4 dhabar ku taabtay marka tu walba dhigto wuxuu ugu sheegay wuxuu yiri dhabarkan ka taabanay mid dhabar ka taabto yaan jecel 4 gabdhood marka dhabar ka taabtay gabdhii tu walba wuxuu qabtay in la jecel yahay golaha wasiirada marka meeshii mid dhabarka waxa ka soo taabtay xukuumaddii ugu dambeystina marka waxay raacday ninkan odayga marka waxa horyaal baarlamaan qaybsan oo arki kartaa hadda 112 dheeraad inay siisay codka dhanka kale oo loo direemi karo inay mucaarad yihiin baarlamaankii 2 bilood 3 bilood oo soo dhaafay daano weyn baa kala gaadhay oo ilaa ay dad hubkooda soo qaataan la iscaayo public la isku dagaalamo la isxaniya taabto ku sii daro baarlamaanka 2 nin oo kamid ah waxa ka qoran sheeg in ay xasaanada laga qaado jawaari diiday oo ayagana turkooda dagaalka ayadeed way taagan tahay marka baarlamaanka kala qaybsan waxaa la doonayay qof dhexaada waaye araga shaqada yaqaano walow aan la gaaraynin ninka odaga meesha laga qaaday laakiin nin dhaweyn karo laakiin sida muuqato waxaa muuqato baarlamaanka 3 arrimood bay joogi jirtay sida meesha loo yaqaanay inuu yahay matalaad shacabka marka hore matalaad maysan ahayn oo niman odayaal oo beesadooda ku yimid bay ahaayeen iyo inay ahaayaan la xisaabtankiina ma jiro sharci dejintiina ma jirto marka la xisaabtankii awalba waxa isku milmeed madaxtooyada iyo golaha xukuumadda maxkamadna ma jirin dad ku dhaxayso hadeertaan marka haatanna waxaa timid ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan iyo madaxweynaha marka arintaas Soomaalinimada iyo dawladnimada la raadinayay aad badan maasantahay ana shakul walaalo kula sii joogo waxa tiri filamayno in jawaari oo kale mas'uul u dhigma aan baarlamaanka hogaamin doono waliba aad leedahay baarlamaanka waa uu kala qaybsan yahay marka loo yimaado maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha cusub ee maanta la doortay iyo jawaari hadiiba 2 mudanayaal ahaayeen oo baarlamaanka ka tirsan miyaanay isu dhigmin oo ay baarlamaanka hogaamin karin sababaha ku muuqanaya oo leedahay jawaari baa la filan doonaa iyo waxyaabo fara badan oo jawaari uu qabtaba dib loo fiirin doonaa bulshada ay tabi doontaa maxay tahay haddii aan ka jawaab su'aashaas bisaraxa labada qof waa mudanayaal baarlamaan isla markaasna ka soo jeedo dadka loo digri mirifle haddana si mirif nimanka loo
saas haddii loo dhigo waran laakiin mudane jawaari waxaa la ogyahay laga soo bilaabo xukuumadihii daakhiliga ilaa haddeertaan inuu ku dhex jiray sharci dejin wasiir iyo agaasime islamarkaana marka ugu dambeysa uu ka hadla taliya dastuurkan hadda kumeel gaarka oo lagu dhaqmay marka waxaan ka hadlay waxaa waye khibradda da-da culimanimada iyo shaqada uu soo qabtay walow ninkaan nin dhalinyaro ah isaga naftigiisa la dheersan karin oo dowladda wax badan ku jiray laakiin macnaheedu ma ahan inuu ninkaas odayga gaaray waxayna kuu muuqataa nin oday oo dhabarka laga taabtay shaqo oo asaga aanan lahayn raadsaday ku yimid laakiin ninkaas wuxuu ahaa shaqo oo asaga doonay oo Soomaali rabtay nin raadsaday marka labadaas arrimood bay kala duwan yihiin waa tahay cabdulqaadir shaafici cabdullaahi markii aan dhankaada ku imaado saaxiibada dooda ay soo jeediyeen waad u jeeday sida waliba baarlamankan gudoomiyaha cusub doortay shaqooyinka hor yaala iyo hindisi sharciyeedyo ay muhiim tahay inay meel mariyaan mis leedahay gudoomiyaha cusub ee baarlamanka mursal arrintan loo igmaday ee baarlamanka maanta u doorteen sidii loo igmaday ayuu uga soo dhalaali doonaa artida bismillahi raxmaan raxiim saaxiibadii horta marka hore waxaa waaye stuudiyaha iyo saaxiibadii waan salaamayaa tv-ga lagu casuumay halkan aad baan ugu mahad celinayaa shacabkana daawanaya ayagana waan salaamayaa aniga saaxiibaday arrimo dhowr ay ka dhawaajeen waan la qabaa waxaan u malaynayaa ninkan maxamed sheekh cismaan maxamed mursal sorry cafwan gudoomiyihii hore afkeena ku dhagan weli waxaan marka dadka aaminsanahay weli inuu gudoomiyihii hore gudoomiyihii uu yahay balse waxaan aaminsanahay dowladdan inay arrimihii ugu talagaleen ay ka guulgaareen waayo ra-iisul wasaaraha wuxuu hogaaminayay xukuumaddii uu hogaaminayeen wuxuu kasoo dhex saaray wasiiro xul ah oo ugu talagalay mid hadduu ku helay mid kale inuu la gafin uu ugu talagalay marka ku talagalkaas micnaheeda saddexda tartamaysay hal unbay u dhigmeen micnaheeda sida aan dareemaynay inkastoo walow uu maanta uu ku daray ninka lagu la tartamayo ugu dambeeyo oo lagu magacaabo isaaq yarow uu yiri dowladda iyo muxuu ahaa walaalahay weli aan leegama guuleysanin oo anaa guuleystay oo ula jeeda micnaheeda in laga heliyay oo markuu hadlayay laga helin ay meesha imaatay dowladda waxay ka qaaday professor Jawhari waxay ugu qaaday si awood leh ay ugu qaaday kadibna waxay u gudubtay in xaalad muxuu ahaa ay soo saartaa ninkan nin ka baxsan labada dhinac oo ayaga ay mid yani hogaaminayaan ay soo dhistaan oo yani wixii loo dhiibay marka ay arrin ay muxuu ahaa yani ku saleyn karaan hawshooda ay ku saleyn karaan waxaad sheegtay in isaaqiro Ibrahim Isaaqiro markuu hadlayay uu sheegay ama ay ka muuqanaysa hadaladiisa in laga heliyo oo kale adna waxaa tiri dowladii ama golay xukuumadda ayaa ka heliyay haddii hadalkaada aan dhinac kale u dhigno maxay tahay sababta aad u leedahay arrintaasi waa looga heliyay marba haddii xukuumadda ay ka tirsanaayeen hogaaminta baarlamankan ay u tartamayeen labadooda maxay tahay sababta looga helinayo isleedahay jirtaa walaalkay ayaa waxaa ka dhawaajiyay group afar xaasnin qabo oo dhabarka wada taabtay taas ayaa hadda dib ugu noqdo asagoo ka hadlaya arrimaha dhabarka baa laga soo wada taabtay kadibna muxuu ahaa yani goosha laga lahaa wuxuu ahaa hadda ninka lagu fadhiisay kursiga oo Soomaalidana way saadaalisay oo hore loo saadalinayay waxaan loogu talagalay wasiirka gaashaandhigga waa awoodaha ugu muhiimsan ee maanta dowladda ay muxuu ahaa yani la tiri karo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirada la tiri karo iyo xukuumadda yani dowladdii meesha ugu adkeed ninkii iska soo casilay marka inuusan gafaynin waa dareemi kartaa waxa loo ballanqaadka adag hadday noqon lahayd in la iibsado golaha baarlamaanka qaar kamid ah hadday noqon lahayd qaadku afkaar يعني قار وأنا ولا عقاد إنه كأفكار هاجر كنا وحاجر تقار العقاد ولجو كاني لبضنا عن أنا نجرين ودولة نجرين قلها يعني خلينا كمعارض كنا نجرين مركا وحادرين مقطع مركا إن أودي لسكو جي محمد مرسل ما أنت روقو فدي مركا دولة دي هذه حل نعوضنا نقطة وحملنا مشس إن وحبا أي سن كنا سعدين watahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ina daawanaya caaw waxa isweydiin karaan maadaama Soomaalida muddo dheer ay burbursaneyd isla markaana la raadinayay dawlad iyo hogaamiyaal isku aragti oo Soomaalida meel u jiheeyay si dhibaatooyinkii la soo maray 27 sano looga gudbo haddana haddii la helay hogaamiyaal isku aragti noqon kara haddii sida hadalkaad u dhigtaan loo dhigo maxaa diidan in Soomaalida ay hesho ay hogaamiyaan taanu miyaanu ahayn in Soomaalida siyaasiyiinteeda iyo dadka siyaasadda falanqeeya hadii jeer ay u jeceliyeen hogaamiyaal iska soo horjeeda oo biri ka maalina loo lami karo waliba dhaqaale burbur dhalin kara mararka qaar shaqooyinka istaagasho isku aragtida naftarkeeda dadka moogtahay markii siyaasadda lagu jiray markii banaanka la joogo waa laba nooc macnaheedu ma aha in aniga adiga kala aragti duwan inaan isdagaalayno hay
haddii isku aragti la yahayno wixii way soconay haddaa isku aragtiyeenno wixii shuruuc waxba yaala laakiin waxa laga baqay waxaa weeye inay dowladnimada isku milanto horo hal rugni oo aad u weyn oo dhibkeed wato oo Soomaaliya hadda wax kala saaro aan u maleynaa jawaari hadda jir leed uusan bixi lahayn dhibaatana dhici lahayn u maqnaa kii kala dil waay marka macnaheedu waxay la mid tahay wixii dhibaatooyinka dhacay 90 wixii ku horeysay oo Soomaalinimada waxay isku haystay wax kala ma ahayn gaajo ma haynin amni la'aan ma haynin macnaheedu waxay ahayd xukun aruursan oo hal meel ku jiro oo u arkayeen inuu yahay dictatorship muxuu ka duway marka kan haddii barow uu ka aragti doonaado nimanka meesha jooga barow la dilayo ama la ceyrinayo maxaa dadkii 91 joogto raas caseer la raskambori dawladda ka talinaysay oo dabaabaad kale oo qarashkii iyo dhibaatadii iyo dadkii cashuurtooda ay ku dalku ku dhisnaa loo burburiyay marka taa way tan keenaysa marka aan ka qaylinayno dawladda isku milmin isku aragti ha la ahaado laakiin dawladda ay isku milmin macnaheedu hadda marka waxa weeye wasiirkii gaashaandhigga oo shalay lagu bedelay 3 bilood 4 bilood jooga ninka odayga in inta li dawladda iska casho gudoomiye baarlamaan baa ku siinay macnaheedu waxa weeye gudoomiye baarlamaan ma jiro ra'iisul wasaarena ma jiro madaxweynena ma jiro hal barnaamij oo niman odayaala oo jooga fila Soomaaliya oo xildhibaano yar yar oo kala qabiila iyo dhowr nin ay wataan in Soomaaliya ku socdo Soomaaliya way ka weynta intaas ma Soomaaliyeed waxay ahayd xagala geel gunti wax la geli ka weyn in Soomaaliya 3 nin ama 4 nin u taliso hora loo soo diiday tii marka tu ka dhib badan ee dhacda anaga ka talnayna dawladnimada iyo isku milmin aragtida problem ma jiro aniga adiga isku aragtina jirtina kala aragtina waa wada fadhiisan karnaa waa wada hadli karnaa anagu is dileen laakiin dawladnimada inay kala banaanka joogto in walba shaqaysi qaadno waa taas doonayna waa tahay taas kudeeda waxbaan ka weydiin doonaa laakiin haddii aan geelle dhankiisa u gudbo geelle kolley sida muuqanaysa saaxiibada dooda ay keeneen waxay leeyihiin hogaamintii iyo iskorjoogtayntii shaqooyinka iyo fulintii baarlamaanka intaba isku milmayaan oo dad isku aragtiya haddii loo dhiibo waxay noqonaysaa in la isku abaasho arrintii shacabka ay u dirsadeen hogaamiyaasha laakiin maadaama gudoomiyahan cusub uu yahay nin cusub oo hogaamintii baarlamaanka ku cusub laakiin saaxadii siyaasadda aanu ku cusbeen oo hore u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliya maxay tahay saska laga qabo oo loo leeyahay ra'iisul wasaaraha ama madaxweynuhu la safan doona isagoo baarlamaankii hogaamiyay maxaa keenaya saskan cusub mise waxaa laga orinayaa oo kaliya shalay xukuumadda ka tirsanaa maantana gudoomiye baarlamaan baa loo doortay ma aragtida baa idiin muuqanaysa mise waxyaabo kala jira maya aragtidu saas maaha waxa weeye barow marka aad fiiriso qaabkii xukuumadda ay usoo weerartay golaha shacabka gaar ahaan hogaankii ugu sarreeyay golaha shacabka awooddii iyo dhaqaalihii ay ku bixisay inay meesha ka saarto oo xataa gaartay heer dagaal in qol isku qaato golihii baarlamaanka dhexdiisa dhaqaalihii ay ku bixisay marka aad fiiriso gudoomiyaha cusub ee maanta la doortay sida uu ku yimid isagoo kasoo tegay jago muhiima oo wadanka u hayay hadduu wadanka u shaqeynayo way fiicnaan lahayd jagada uu hayay iyo xilka uu hayay ugu shaqeyn kari lahaa wuxuu ahaa balan wankii ugu horreeyey ee xukuumadda iyo madaxweynuhu ay soo diyaariyeen balan b-na wuu jiray ilaa balan 4 ilaa 3 4 4 saas a b c u jiray asaga balan 1 uu ahaa wuuna ugu soo baxay waa sida dadka siyaasadda indha oo dhan ay qabaan iyo waxyaabihii ka dhaco taariikhda ahaa markii dib loo fiiriyo marka waxaasoo dhan la eego waxay u eg tahay maanta laga bilaabo markii la doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaa meesha ka baxay sharciyadii baarlamaanka matalaadii shacabka oo iskugu tegay hal meel madaxtooyada hoosteeda fadhiistay dhammaan awoodahaasoo dhan waxay hoos galeen baarlamaanka shaqadiisii waxay ahayd inuu qabto check and balance wax loo yaqaano inuu xukuumadda uu ku sameeyo wixii qaldanna uu ururiyo u diyaariyo yiraahdo waxaan halkaan ku qaldan sidaan loo soco waxaasoo dhan maanta laga bilaabo meesha ka bixin cidii fahamsan iyo cidii aan fahamsanaynba waxaa soo haray baarlamaanka dhexdiisa ayaa waxa ku bilaaban doonta xildhibaanada in qaar laga qaado xasaanadii sidee baa lagu ogaan karaa arrimahaas waliba aad soo dadjinaysa waxaa lagu ogaan karaa gudoomiyihii kusimihii gudoomiyaha baarlamaanka maalmihii dhaweeto wuxuu keenay oo uu yiri waxaa la xaday waxaa la yiraahdaa dastuurkii baa la xaday ciddii xaday iyo sida looga soo helay weli lama faahfaahin waxaa fiicnaan lahayd inay faahfaahiyaan sidaana loo xaday markii dambena warqad buu keenay soo edit gareeyey oo uu yiri baarlamaankii asalka ah ayaan soo helay baarlamaanka asalka ah waxaa ka maqan hal sano madaxweynihii hore ayaa kaga dhex maqan isaga siduu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka asalka waxaa ku maqan 50 xildhibaan ayaa dhexdiisa ku maqan oo dheeraad oo hadda joogta marka waxyaabaha dhici doona oo ay kala hufi doonaan xukuumadda hadda joogtay madaxweynuhu waxyaabahaasoo dhan ayay samayn doonaan waxay noqotay marka dhardhaar digsi u baahnaa 3 dhari inuu hayo mid horu kaga sii maqnaa oo laba isku celcelinay kii kala maanta ka baxay meesha
marka waa xaaladdu ma qumana watahay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed baa ina daawanayso waliba taageero ballaaran oo ah dawladda iminka maanta jirta wad ogeydeen markii madaxweyne Farmaajo la doortay dadku sida u soo banaabaxeen muddo kooban oo xilka hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa muuqanaysa taageerada bulshooyinka uu ku kasbanaya hadallada cadcad ee ka imaanaya haddii gudoomiye baarlamaano la aragti ah meelna ula jeedo uu shafci yimaado oo waliba dawladdan hal aragti la qaba miyaan ahayn guul la gaaray taas ba qabno aniga xanan ama siyaasiyiinta muxuu ahaa yani aad u leeyahay waayo dawladihii hore oo soo maray wadanka way kala aragti doonayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka in badan muxuu ahay mushino way iska soo jireen wayna yani dawladdan waxay ku faantay inay mushino imaan doonin mushinadii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka imaan jiray way waxay gudoomiyaha baarlamaanka jaha hor loo oganaa aanan filaynay keentay marka waana dareemi kartaa iyadoo macnaha yani awalba xildhibaanada qaar la rabay in macnaha xasaanada laga qaado oo horjooga gudoomiyihii hore baarlamaanka professor Sheikh Usman Jawari oo in badan yani guddigii joogtada ay difaaceen arrintaas maanta waxaad dareemi kartaa in gudoomiyaha baarlamaanka la doortay uu shalay ka amar qaadanayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre marka waxaa loo baahnaa gudoomiyaha ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre la dagaalami kara aragtidaada ما أساس مقاومة لكن الدنيا كاركتر دوان مدحوينها يو رئيس الوزراء كاركتر دوان أنه قامين كلا قلها شعبك بارلمانك وحين مثلا صومالي ده محوها يعني صدورتي هذه أي شرع دجنتي أي مانع حكومة دي أمام محوها في الصومالي هوستكتو وحد ليه مكرتها ماشاس إنه سن محوها يعني دولة نمدي يجري دونين saddex qof oo u talisa ee dawladda ay halkaas maxayd u sheegi doonaan oo wixii rabana la iska sameesto oo cidna aysan ka hadli karin dood baa soo laabatay dhowr jeer soo celceliseen oo ah gudoomiyaha baarlamaanka cusub Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan haddii uu talada la wareego waxay noo muuqanaya xildhibaano cadcad oo baarlamaanka laga yaqaano hadalla kulula inay suuragal tahay in xasaanadii laga laabto oo guddiga anshaxa ee baarlamaanka la horgeeyay isla markaana suuragal ay noqoto in jagooyinka ay ka tagaan shakul haddii aan ku imaado oo waliba aan su'aal arrintaasi kamida waan ku iman doonaa shakul laakiin haddii aan u wareego geelle oo dhowr jeer soo celiseen waa suuragal xildhibaan shalay xildhibaan oo maanta jagadii laga qaada la arki doonaa aad tiraadeen sababaha arrimahaas aad u leedihiin ood u soo celinaysaan oo leedahay way imaan doontaa oo saadaashaasi bulsho Soomaaliyeed maanta aan u muuqan adinkeedin kugu muuqanaysa maxay tahay waxa weeyaan inagoo awalba ka shaki qabnay qaybo kamid ah xildhibaanadii laba xildhibaan oo kamid ah in horey looga la yiri xasaanadii baa looga qaaday oo uu soo saaray warqadaas xeer ilaaliyaha guud ee qaran ayaa waxaa hor istaagay gudoomiyihii hore baarlamaanka Sheikh Maxamed Usman Jawari ayaa wuxuu sharci ka soo saaray warqad bayaan ka soo saaray waxay waxba kama jiraan eedeymaha lagu eedeeyay taas ayadoo tuhun badan qabtay sababihii gudoomiyaha baarlamaanka meesha looga saarana ay qayb weyn ka ahayd ayaa waxaa timid nuqulka asalka ah oo keenay gudoomiyaha kusimihii gudoomiyaha baarlamaanka uu keenay in la leeyahay waxaa ku dhex jira 50 xildhibaan oo lagu soo kordhiyay halkaas marka waxay ku ifinaysaa qofkii fahmaya arrimaha socda waxay u ifinaysaa in la rabo in lagu dhimo xildhibaanada xasaanada laga qaadi rabo in meesha looga saaro waxay noogu muuqataa marka waxyaabaha dhacaya sideedaba history u dhacaa in wax laga barto marka maalmahan wixii socday ayaan ka arkaynaa inay soo socota arrinkaas arrinka kale oo ah baarlamaanka hal mar rabo inaan dib ugu noqdo in yar baarlamaanka iyo xukuumadda markaad fiiriso maxkamaddii sare meesha way ka maqantay gabi ahaanba baarlamaanka iyo xukuumaddu waa laba hay-adood oo kala madax bannaan waxaad ula jeedaa maxkamaddii dastuuriga way ka maqantay baarlamaanka iyo xukuumaddu way kala madax bannaan yihiin mar kasta dabadeedna waxaa loo baahan yahay inay mid waliba aragtida dadka hogaaminaya oo u gaarka ay ku shaqeyso haddii xukuumaddii iyo baarlamaankii hal aragti ku shaqeeyaan macnaheedu waxa weeyaan waxay isku noqdeen hal hay-ad marka maantay wixii dhacay waxay ku tusinaysaa berri laga bilaabo shaqadu hal meel ayay ka socon doontaa laakiin dood waxaa soo celisay marka la geli haddii aan ku weydiiyo waxaa suuragala in 50 xildhibaan in shaqooyinka ay waayaan oo sharci la keenay sida aad tilmaanteen suuragal tahay in 50 xildhibaan oo maanta baarlamaanka joogta aan ku qornayn miyaanu ahayn Soomaalida kuwa wax ku qaybsada 4.5 oo hanaanka beel qaybsiga Soomaalida ku saleysna sidee baa xildhibaano beelo ku metelaya golaha shacabka ay suuragal u noqonaysaa
in meesha looga waayo doodaasi soo dadka qaar muranka ma keeni karaan ha way dhici kartaa laakiin waxaa dhici karta haddana mar walba oo la yareeyo xildhibaanada kuwa jooga ayaa lagu salayn karaa 4.5 marka wax weyn oo cusri ah ma noqonayso marka anaga reductionkaas ama yareynta xildhibaanada ujeedkii laga lahaa oo loo bedelay gudoomiyihii baarlamaanka hore gudoomiyihii haddaad xusuusato wuxuu yidhi waxaa la ii keenay dukumentiyo golaha baarlamaanka dhibaato ku ah oo aan diiday marka hadallada aad eegto iyo hadalkii muuday uu yidhi kii asalka ahayn hadda soo helay marka waxaa kuu soo baxaysa meelahaas oo dhan inay ka jirta arrimahaas jiri karaan waa tahay shakul waad maqlaysaa dooda saaxiibka geelle iyo arrinta meesha uu keeno oo ah xildhibaano ayaa baarlamaanka inta laga tiray suuragal waxay noqon kartaa 4.5 xildhibaanada joogo in loo qaybsan karo doodaasi markii aan ka imaano gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee Soomaaliya khudbadii uu jeediyay waxaa ka mid ahayd mahadcelinta baarlamaanka waxyaabo badan oo baarlamaanka hor yaalla uu qaban doono tallaabooyinka uu qaadi doonana kolley waa tallaabooyin bulshada Soomaaliyeed u cadcad oo ah howlaha baarlamaanka u yaalla hindisi sharciyooyinka in la horgeliyo baarlamaanka uu gudoomiye u noqdo afayeen u yahay baarlamaanka arrimahaasi waxa ka bedelan oo shaqooyinkiisa oo daaha hoostiisa aad ka aragtaan oo inta badan aad soo celinaysaan oo shakiga aad u muujinaysaan bulshada Soomaaliyeed haddii aad u bayaanaysaan waxaa jirtay ani sheekooyinka Soomaalida aad u fiiriya moogtan waxaa la yidhi xilliga hore oo Soomaalida baadiya iska deganayeen 100 sano ka hor dadku magaalo joogaan yaa nin dad cuna meel degan baa nin odayoon aqoonin kusoo dego ilmo wata oo meel fiican oo degalahoo doog lahoo biyo lahoo qof kale uusan deganin ninkii meesha iska furtan markuu degayo galabku yimid wuxuu yiri adeer meeshan iska guur kasoo ma maya meeshan meel fiican ma iska guur warga tag buu yirniyo habeenkii wiilka codkiisa qaatay odaygii waa lagu ordbadiyay wiilku waa gaari waayo subaxii uu yimid wuxuu ku yiri shalay baa tala xumeed xalayna waa orod gaabneed oo macnaheedu yahay Soomaalida shalay tala xumaayeen maanta orod gaabiin waxay ku tusinaysaa qofka bini'aadanka si saaxiibada sheegeen aqliga wuxuu Ilaahay noo siiyay inaan ku fikirno inaan wax ku odorsano inaan wax ku fahmi karno nin odaya oo howlkara oo shaqo yaqaano oo shaqadiisii wax aan hadda garan karno hadda oo sababsay aysan jirin yaa meesha laga qaaday wax laga qaadaa meesha ku jiro carabtu waxay tiraahdaa fama ashbahu layla bil baariha meeshan haddaan wax lagu xalaalaysanaynin oo ma maleynayo ninka dulqaad badan oo ka dhib yar oo ka shaqiiqaasan inuu jiro oo ka hogaamin fiican aniga waxaan kamid ahaa ergadii 2012 wax ka ansixisay dastuurkan hadda leeyahay waa la xaday نقول كم إذا سيحياشي لحد قفي سيحانه وأنا هستان كليا قد يأكل لك في مصاب على الدستور كي هذين يسوي له مقيم تذكر الله هستان قفل بوه هستان ما قفل بوه هستان الدستور ده هالحب باين باش القرية كيلا سيحي قروا وني قروا تون وجونا كليا هل قضب بكجري أو بربانك صومالي مركز دم لما قضب بجري أو مركز بربانك فرمل الله علي بلو يسددوا كتير ديك وحكم إذا مدة in kii ugu horeeyay qabtaan in la kala diri karo baarlamaanka way laaleen waxa kale ka mid ah caasimada magaalada Muqdisho ee calaamad su'aalta ayadana way laaleen qodobada ninka odayga gudoomiye ku-xigeenka hadda uu keen waxa ka mid ah kaliya ku jiro qodobkii ahaa Muqdisho ee calaamad su'aalta kaasna waa la laalay uu soo dhaween meesha lagu iska jiifay ma qana meel jiro waldo markay isaas jirto macnaheedu waxa waaye dastuurka hadda aan haysano dastuur ma aha madaxweynuhu marka madaxweyne maaha gudoomiye baarlamaan iyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaal ma sababta waxa sharci lagu yahay wixii meesha aan qoranay hadii aan wixii la raacaynin macnaheedu waxa way niman xoog meesha ku haysto oo wixii rabaan soo saaray hadii markii hore la raacay nimankan odayga waxa laga rabaa gudoomiye ku-xigeenka in asaga shaqada laga qaado ama asagu iscasilo sababta sharciyad kuma joogo kadibna dib loo fiiriyo amendment lagu sameeyo dastuurka mararta ninka uu sheegay sababta gudoomiye ku-xigeen baarlamaan oo si hayo gudoomiyana ahaa howlihii uu qabtana la ogyahay aad leedahay waxay ahayd inuu isaga boos isaga tagay maxay tad ku eedeynayso ما يوحوا هو شو قبض ما هو قبض مودي waxa gali uu qabtay oo ognahay waa in uu record u ahaa xukuumadii meesha jirtay oo ninka odayga ciiriyo hadeertaan marka meesha waxa taalo hadii aad aaminsaneen sharciyada meesha taalo oo dastuurkaadi la xaday oo nuqul dastuur ku jirna keentay oo 225 xildhibaan ku qoriyeen hadeertaan 225 yihiin adiga xildhibaan marka konta kawso kamid waxay aduu gacantii intuu taago oo adeerayaal oo meesha sharci kama jiro sharci darro ku joognaa xaal masduura ku jooga konta ka baxayaan kamid ah raalina hada markaas waa ogolaan leh sharciyadu sheegay in ka odayga inay jirto waa tahay wana soo laaban doonaa su'aalahaasi Shaafici 118 xildhibaan ayaa ku codaysay gudoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan 118daasi waxa dadka qaar ay leeyihiin waa xildhibaano idinkeeda la aragtiya caaw
oo aaminsan in baarlamankii dhinac kala waaday inkastoo aragtidaas dadka qaar ay diidi karaan laakiin marka loo yimaado 118 xildhibaan oo runtii ah number adag oo muuqanaya maxaa laga filan karaa gudooda ma aragti sidaan oo kale inay baarlamanka hor keenaan mase arrimo kala duwan baa soo bixi doona maalmaha soo socda taas ma qaba waayo xildhibaanada hadda doortay maxamed sheekh cusmaan muxuu ahaa gudoomiyaha cusub naftigooda qaar aanan yani rabitaan u dooranin oo lacag qaatiya jiri kara oo qoladan ku aragti ah xalay ka socotay 7,000 oo afsaar ah iyo ballanqaadyo arrimaas maxaa xaqiijinaya in $7,000 la bixiyay baa bulshada Soomaaliyeed isweydiin karta in xildhibaanadu ay qaateen oo mararka qaar noqon kara haddii arrintaasi aanay suuragal lahayn ama aanay dhicinba inaad baarlamaanka ku gafaysaan may gafid ma jirto baarlamaanka Soomaaliya matatan baa isaga ku imaaday waa lacag ku imaaday aan ognahay oo doorashadii hadda ugu dambeysay baarlamaanka naftigiisa 220,000 iyo 70,000 iyo 80,000 malyan yani ku imaaday oo la ogyahay wax cad ah oo aanan qarsooneyn oo laaluushka Soomaaliya way cadahay oo markay isu dhiibaysa xataa wax cad way oo hadii la keeni karo cadeen xataa la heli karo marka ergadii naftigeeda ayaa la hayaa oo soo dooratay oo muxuu ahaa awal waxa soo dooran jiray oday dhaqameed hadda way ka weyneedo waxa soo doortay ay soo dooratay lan marka waxaan dhigi karnaa taas in muxuu ahaa baarlamaanka hadda jiro oo muxuu ahaa yani qaarna ay lacag ku imaadeen oo hadda muxuu ahaa yani lacagta ay wali jirto oo lacag la isticmaali karo dhinaca kale hadii loo rogane muxuu ahaa yani ninkan inta hadda soo dooratay inaysan muxuu ahaa isla qamisku aragtina aysan ahayn oo yani qaar xataa muxuu ahaa yani aysan iidooda aysan ku dooran oo lacag rabitaan ay ku doorteen watahay arrinta lacagta haddii la soo celceliyo dad fara badan ay isweydiin karaan oo baarlamaanka xubnaha hore uga hadlo meelo kala duwanna ka hadla ay sheegeen in aanay lacag qaadan balse lagu gafo bulshada Soomaaliyeed ay mala qaataan hal $7,000 iyo ballanqaadyo baa xal la bixinayay shakul arrintaas maxaa lagu xaqiijin karaa waxaa aada ogtahay barow Soomaalida sir ma laha anaga xildhibaanaas badan baa saaxiibo la nahay qaraabaan nahay qaar isku galaas ahayn qaar soo wada shaqeynay dhaqdhaqaaqa soo socdayna anaga waa ku jirnaa waana ka warqabnaa haddii aan kor u sii qaadno madaxweynihii hadda jooga oo yimid February Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan joognay meeshii sidii wax u dhacayeen waan ogeyn shalayna waxa aad ogtiin inuu muxaadaro ka qabtay Minneapolis Samatar oo guddiga anshaxa gudoomiye ka oo yiri indhahayga waxaan ku arkayay $30,000 inuu bixinayo Farmaajo anaga naftarkeena marqaati keen laga soo bilaabo marka dawladihii Soomaaliya corruption-kaasi ku joogeen gudoomiye baarlamaanku hadda la diray iyo ragii uu oleynaya compromise lacag ku tagay oo $12 milyan lagu sheegay hadda qudheedu caaw $20 milyan dhacday balad weyne iyo baar dheer inta ka dhaxaysana fatahaad ilmihii baa geeda la saaray marka taabaaba ku tusaysa inay aysan meelna ku gaaraynin in kaarti dadka ay ku dhixi doonto in 20 milyan gudoomiye baarlamaan lagu diro mid kale lagu keeno laga yaabaa inay u baahan yihiin dadkaas fatahaadda wax ka yar $4 milyan marka taa anaga waan ognahay xaqada hadii loo baahdana maanta hadii anaga maxkamad ma joogno investigation kuma jirno laakiin waxa xaqiijin karnaa marka loo baahdo laakiin wax la ogyahay waa Soomaalida inay ogtahay in xalay la bixiyay 7,000 oo mursal lagu bixinay ballanqaadyo iyo lacag kale tan ay dhaceen oo inay soo bixi doonaan kala loogin xaqada hadii loo baahdana aan personal aan wax xaqiijinay marka loo baahdo aad iyo aad arrimaas waxay nooga filan geelo isaa kamid ahaa dadkii u tartamay kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka baa jooga oo haddii Soomaalida lacag ay isku doortaan haddii kale bay noo xaqiijin karaan geela aragtidaasi adiga ah in qofkii Soomaaliya la rabay in la doorto ama kursi kamid ah kuraasta dalka isu sharaxa inuu lacag bixiyo ma arrin jirto cad oo muuqanaysa barrow sidii saaxiibadan ku doodeen oo muran kama taagna in golaha shacabka iyo xukuumadda madaxweynaha xubin kastoo kamid ah dawladda xitaa wasiirada qaybo kamid inay lacag ku yimaadaan inay wasiirnimo helaan adiga kursi baa dooratay mise lacagaad hore u qaato Soomaali fara badan daawanaysay wax u ogaadaan ma yarayn waa soo dhamaatay waxaan rabaa inaan laakiin la yaabku uu yahay su'aali ka taagnaan kartaa xildhibaanka golo baarlamaan fadhiya ee ummad matalay ee lacag 7,000 qiimihiisa lagu gadanayo iyo aragtidiisa iyo codkiisa lagu gadanayo leeyahay 7,000 ayaa ninkaas caawi codkiisa dhinac kale u riday isagoo aan aaminsanayn fikirka uu baalka la yiraahdo ninkaas kale ku soo ama qofka uu codeynaya aan aysan isku fikir ahayn ninkaas wuxuu yahay runtii
arrin aan loo baahnayn ama xildhibaanba aan la dhihi karin marba hadduu sidaaya waxay ahayd xildhibaanku qayimkiisa iyo mabdiciisa inuu ku taagnaado ha lagu kala helo waa raganimo iyo dadnimo haddii 140 ay dhinac mabda u marto inta kale 118 ay dhinac mabda u marto sida ku kala codeeyeen waxbay ahaan lahayd laakiin mabda meesha ma yaalo xildhibaanadu lacag bay ku socdaan berrina ninkii lacag badan ee lacag la yimaado ayaa codkooda gadanaya waana nasiib darro runtii waa nasiib darro shacabka Soomaaliyeed haysta waa ku iman doona waxa xildhibaanka ugu dambeeyay oo soo doorto yaa ahaa gudoomiyaha guddiga doorashada waad ogtiin doodii uu taliyihii hore sirdoonka qaranka uu ka sameeyay $360,000 ay dawladda soo dirtay calaa qof inta ku lagu siiyay meesha la yiraahdo waxa jawhar Hirshabelle xaqaleed marka famaash booleyda min baarix marka waa arki kartaa meesha loo doortay siduu ku yimid nabadii nolol soo ku yimid marka waa wax iska cad waxyaabahaas oo dhan laakiin dad fara badan baa waxay gelin doonaan arrintaas inay dood aan macno badan dhalin inay tahay mar haddii uu yahay mudane ka tirsan baarlamanka la doortay la dhaariyay isla markaana aan horena baarlamanka uga soo tirsanaan jiray oo ku cusbeen taa macno ma keenayso baro Soomaalidu waxay dhahdaa ama waxa jirto dariskaada waa ilaala aan lagu dirsanin annaga shaqadeena waxay tahay inaan analyze garano siyaasadda rajo kale maro inaan ku gafno ma dadka qaarkood waa waaridkood hadda ku sheegayna qaar saaxiibaan u nahay hadda gudoomiyaha baarlamaanka la doortay aniga laga soo bilaabo 2009 markuu siyaasad soo galay hadda saaxiibaan mara arday ka Turkiga waa la joogo safiiraha hadda markuu laga dooranay Baydhabo observerskiisa ku jiray waan joogo ka shaqeynay Baydhabo gurigiisa ugu tagi jiray shakhsiyan waan aqaan macnaheedii damiirkayga markii ma siinaysan ka inaan saaxiibana ama qaraabana inaan dhaliisha jirto aan qariyo si ay bari dawladnimada iyo Soomaalinimada u dugmado annaga dawladnimada iyo Soomaalinimada waxaan rabnaa inay si toos ahaato wax kasta oo sheegaynina ilaahayna marqaati uu nooga yahay dadkuna way nagu arkaa inay beenta inay runta barino marqaati waa tahay Cabdiqaadir Shaafici haddii aan dhankaada mar kale u soo wacdo waxaa tihiin rag dhalinyaro ah siyaasadana rajo kale in badanna siyaasadda Soomaaliya qaarkoodna ay kuraas soo sharaxeen qaarkoodna laga shaki qabo sanadaha soo socda saacad siyaasadda isgeeyaan maxaa keenaya idinkoo bulshadii Soomaaliyeed aragti fara badan ay qabaan wali marka la eego boqolleyda marka loo eego dad fara badan ay taageersan yihiin dawladda in idinkoo dhalinyaro ah ismutaxdaan oo tiraadaan dawladdii rag baa marorsaday siyaasaddii dad baa gacanta ku haya Soomaaliya dad han lahaayo hankoodii waayay maantana dadkii talada dalka hayay magac dilaya soo looma qaadan karo aragtidii inaysan jiri doonin waxaan ula jeedaa waxay tahay waan nahay dad dhalinyaro ah mustaqbalne leh siyaasaddan rajo badan ka qabo waxa weeye wixii qaldan in laga aamuso ama indhaha laga qabsado ma noqonayso waayo dawlado badan ayaa soo maray wadanka isku dhagdhag iyo dhibaato iyo maxaa la dhihi jiray isbariyaac ma jirin waxay ka dhisneed team isku xiran oo dhisan oo muxuu ahaa yacni ayay ahayn xukuumadda iyo muxuu ahay sida madaxweynaha isla soo shaqeeyay isfahmayay inkastoo muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo muxuu ahay mushine iska imaanayeen laakiin haddana dhibaatada maanta jirta ma aysan jirin dawladdan waxay ku soo caan baxday inay muxuu ahaa siyaasigii hadlaba ay gurigiis ku weerarto weerar ay la imaato dhibaato ay la imaato qofka in free speech inuu ahaado oo macnaha codkiisa uu xur ahaado waa loo baahan yahay waayo diyaarad dawladda ku dhisan dawladda يعني هديسا لها معارض وإذا بنا أبورتو ويو حان لو قلت لك وحياها قلدبية وإن الشيكتا معارضك يعني دولتنا إيه قبتها مركا إن دولتنا وحندي لها إن محوها يعني وحي دتك هاللية إيسن عبورين دتك إيسن محوها يعني سوق جيدته يعني كشقيس دباتوينك العقد اللي بحنا مانتا إن بارلمانك اللي دورانيو وهالك اللي بربرينيو مانتا دتك بلدوينك بابايو يوم محوها جوهر يو يعني فتهديد إن قولada ka dhacay wali waxaan u jeednaa in muxuu ahay aad looga jiifo oo muxuu ahay laga seexday oo lacagtaas lagu burburinayo muxuu ahay baarlamaankii oo muxuu ahay yani maanta nin doorta waxa dadkan xal loo dabaajinayo sheekada intii aan ku seen waxa jirta in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegta uu soo saaray maanta uu sheegay in doorashadu ahayd mid dimuqraadi ah oo bulshada Soomaaliyeed ay u muuqan kareysay in si dimuqraadi la isku doortay dhowr jeer waxa soo celisay waxa loo baahan yahay freedom of speech ama in qofka hadalkiisa uu xor u ahaado laakiin marka hanaanka la isku dooranayay geedi socodka siyaasadda Soomaaliya aad indheysaan mucaaradnimadeena marka laga yimaado soo idimo muuqanayso in xildhibaanada si dimuqraadi wax ku dooran kareen gal barro waxa weeyaan waxaan ku noqonayaa inta su'aashaad ka jawaabay su'aashii aad weydiisay ninka la yiraahdo Shaafici ahayd siyaasadda iyo taageerada dawladdu ay haysato dawladda taageerada ay haysato waxa laga yaabaa maanta iyo shalay farqiga u dhaxeeya waa la ogyahay inta wali ku sii hartayna waxaan leenahay saa dambaad garan
dowladdu waxay fahmi doonaan dadku isku si wax uma fahmaan isku aragtina ma aan qof baa waxa laga yaabaa hal saac gudahood sheekada meesha ka dhacayso dhan inuu fahmo qofna inay hal sano ku qaadato laakiin waxaan aaminsanahay marka hal sano hadda ka bacdi la sii joogo dowladdu inay 0% xukuumadda hadda jirta inay taageero ka imaan doonto taageerada ayadaa luminaysa dadka mucaaradka ku ah ama dadka dhaliila xukuumadaha waxay ahayd dowladdu inay sida hadda ay ula dhaqantay si ka duwan ula dhaqanto oo ay soo dhaweyso aragtidooda u gaarka ah dadka qof maanta kaliya ku filan inuu hadlo oo aan wax kala qaban karin in hadalkiina lagu celiyo waxaa ka imaan karta inuu marka dambe isku kaa qarxiyo amaba uu si kale sidii shalay uu ahaa si ka duwan ula yimaado su-aashii ahayd aad i weydiiso ahayd arrinta dimuqraadiyadda runtii haddii dimuqraadiyad meesha ka jirto maanta laguma doorteen qol hoolyar laguma doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada waxaa dooran lahaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayaa soo dooran lahaa laakiin markii xildhibaanimo loo soo doorto baarlamaanka guddoomiyaha xildhibaanimo marka loo soo doorto marka loo soo noqdo arrinkii wax ku doorteen runtii lama dhihi karo hotel walba iyo guri walba ay xildhibaan fadhiyo iyadoo lacagtii ummadda Soomaaliyeed la rabo in wax lagu qabto ay hor taalo oo lagu qaybinayo dimuqraadiyad baa wax lagu doortay lama dhihi karo waxa wax lagu doortay dhaqaale iyo lacag baa wax lagu doortay marka madaxweynaha hadalkiisa waa aragtidiisa innagana aragtideenu dimuqraadiyad meesha kama muuqato sidee hore iyo tii dambo geela sidee dadku uga iibinaysaa marka aan geela ka soo tago maya aan ku daro horta intaan su-aasha weydiin tii hore aan isdifaacin waxay dhahaan Soomaalida afar af kaa celin la ka goobala annaga siyaasadda rajan kale runta oo saaxiibka ugu tartamay aniga waxa laga yaabaa maalmaha soo socda inaan maqashaan inaan meel u tartamo saaxiibkeena sidoo kale midda kale mulkiga Ilaahay baa bixiyo haddaba nimankan odayaashu joogo xoog iyo farsamo iyo aqli iyo leeyin kuma imaaneen nasiib iyo Soomaaliya qolo kuftay u yimaadeen niman odayaal oo loo ildoofay macnaheedu marka ma ahan haddii aniga aan qaldanahay yaa la dhaliilin macnaheedu ma aniga haddaan ayaga qaldana ayagoo kale tahay waxaan diyaar u ahay inaan fikirkayga dadka ka iibiyo ma ahan sidoo kale inaan dadku dila diyaar u mi qof kasta oo Soomaaliya bari ka maalada wax noqdo oo dhaliili kara haddii sax tahay haddii qalad tahay labadaba marka waa soo dhaweynaya ma cadaawad mu muujinin tan labaad marka oo madaxweynaha Baris listigu soo saaray 2 bilood ka hor markii la siiyay gudoomiyaha baarlamaanka sidii foosho xun loola dhaqmiyo waliba iyadoo tiradii ay go'day oo sharciyad ahayn waqtiguna uu dhamaaday madaxweynaha intuu fila Soomaaliya ka guuray wuxuu deganaa maxamed mursal buu la deganaa wasiirka hadda carrada jooga hadhameeyo markaasay markii inuu Baris list soo saaro markii dambe intuu ninka odayga Allah hadlay hoosaasi yaa haddana hoosh lagu wadaa iyadana naftakeeda oo mas'uuliyad darra ah oo sharaf ahayn oo dhaxaad ahayn hadda marka siduu rabay hadhameeyo siduu rabay markii uu dhacday inuu Baris list soo saaro waxay ahayd sheekadii Soomaalida ay dhihi jirtay baga alla ilaa sida rabay noqotay marka sidii rabay noqotay ha iska noolaada maalmo waxaan sugaynaa markii dambe la isqabto oo maasanta su'aal kale aan ku weydiin dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay is weydiin karaan mutaxanaantiina caawa iyo hadallada dhiiran ee ku aadan in dawladda aad ka soo horjeedaan laakiin marka laga yimaado in dhalinyaro Soomaaliyeed ee wax bartay bulshada ay ku hogaamin lahayd intii aragtiyo waacsan ay soo bandhigi lahaayeen oo maamulka hadda Soomaalida ay 27 sano kadib la dhahayo iftiin dawladnimo maalinba muddo soo jooga qayb kamid ah ay doonayaan raggan dhalinyarada inay biyo ku shubaan samay budeen in aragtiyo kala duwan oo ku aadan in wax lagu saxaad la timaadaan bedelka la imaad lahaydeen in gudoomiye cusub oo hadda yimid oo baarlamaanka hogaaminaya madaxweynaha iyo isagoo looga tayadii ciidamadii dhisitaankooda intii ay ku jireen aad aragti kale u wixisaan soo taasi ma noqonaysa in labada nin shalay ciidamadii dhisayeen maanta hogaankii ugu sareeyay dalka hadii ay noqdaan wax ka badan bay qaban karaan oo adinkaan idin muuqanay waxa aad nasiib darro ah in la dhaho 27 sano kadib erayada waxa waaye problemka iyo qasaaraha ugu farada badan oo Soomaalida ku dhacay macnaheedu waxa waaye 27 macnaheedu waxa weeye nimankan meel la soo gaarsiiyay dawladnimada ka heleen geedi socod fara badan oo dhib badan iyo harjad soo maray oo kumeel gaar ka baxay oo dhib gaaray oo xamar la isku rafaadiyay oo ciidamo Ethiopian inta la geeyay dadka la baabi'iyay oo dadka rabaayad laga dhigay yimaadeen nimankan odayaasha waxay ahayd meesha yimaadeen inay wax ka wadaan maahan inay hoos noo dhigaan oo dhan waxay xadiiskii man la yashkuru naas la yashkurullah qofka aan ku shukrinin dadkii wixii ku horeeyay ay qabteen ayaguna waxooda badan daadis way maanta annaga aan mutaxnaan ugu mutaxana inayna ayagana waxba qabanin andameeyo haddii waan ku siin doonaa laakiin haddii aan u imaado arrinta 27 sano kadib la soo hadal qaaday dhaliisho aragtaan 27 sano kadib dawladda ugu horeysay geedi socodka waan ku siin doonaa laakiin geedi socodka dawladnimada iyo hadba yeegleelida qarannimada
7 sano inay meel soo joogtay 7 sano Soomaaliya ay dhibaato ku soo jirtay laakiin 7 sano dhibaato kuma jirin Soomaaliya sanadada dhibaato ku jirtay sanadada dhamaysto agruumintiga inay disa fiican 7 sano Soomaaliya way ku faysay way dhicisay way kicisay 7 ka sano dhibaato kuma jirin laakiin dhibaatada ugu darneed oo hadda 7 sano ka daran tib celinaysa hadii joogtaa oo macnaheedu yahay ninkii igu horreeyay waxba ma qaban waxbana kama dhaxlin macnaheedu waxa weeye adigana waxa ma tii ilaa hadda dawladda afkeeda laga maxay seel oo ogolaada madaxweynaha hadda joogay ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada inay dhahaan ninkii aan shalay xafiiskiisa kala wareegay 7 sano kadib macnaheedu waxa waaye dawladda 91 la riday wixii ka dambeeyay anigu baa dawladda anigana markaas macnaheedu waxa la taagan siyaasiga oo bari rajada leh adigana dawlad ma tiid laakiin marku ogolaado daraajaradii ku horeysay marku ogolaado ayaan ogolaanay inuu dawladda asal wax qabto aad iyo aad Shaafici baan hadaya Shaafici arintan geedi socodka dawladnimada oo hadba meel soo joogtay wala ogyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyagoo gacanaha haysta in xitaa warbaahintii dunida sawirka Soomaalida ay ka aamintay ay ka bedeleen oo dadka ugu waaweyn warbaahinta wax ka falanqeeya oo Dr. Faisal Al-Qaasim uu kamid yahay oranay waxa loo baahan yahay dimuqraadiyad ka islaaxday dhulalka Carbeed si la mid ah Soomaaliya markii aanu imaano miyaanay u muuqan aragtiyo bulshooyinkii kale ay arkeen in dhalinyaradiinan siyaasiyiinta ah maanta aan idin muuqan horta nin walba aragtidiisa ayaa macnaha u muuqato dawladdan hadda urdanka oo sanadka jirto waxay ku faantaa in waxyaabo fara badan ay qabatay laakiin aniga ahaan uma arko waayo dawladii muxuu ahaa yani wadanka waan isloognahay dawladii Cabdiqaasim Salaad Xasan waxay ahayd dawlad oo guri degan oo loo diiday inay madaxtooyo tagto haddaan ka soo bilaabno waa qayb kamid ah dhibaatooyinka la soo aan ka soo bilaabno waxaa laga soo gudbay in Cabdullaahi Yuusuf oo madaxtooyadii oo banaystay uu dago siyaasadda meesha ka soo bilaabatay iyo Soomaalida meesha ka soo bilaabatay ayadii in dib in loo noqdo fiican waa geedi socodkii guuridii madaxtooyada ay gaartay Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku wareejiyay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Sheekh Shariif Sheekh Axmed waad ogeedeen madaxtooyada la haystay markii loo dhiibay xilka oo lagu hareysnaa wuu sifeeyay magaalada Muqdisho wuxuu ka dhigay mid oo maxay amnigeeda la xaqiijiyay doorasho lagu qabtay guul oo soo hoyatay la mid ah waxa ku soo xigay Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh in badan wuxuu soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ka dhisnaa si fiican ayuu wadanka soo xiray Turkiga hadda lagu faanayo Imaaraadka la sheegayo cid walba hadda la sheegayo maalgashiga la sheegayo Xasan Sheekh dawladdiisa dawladda hadda la sheegay waxay ku faanayso oo leedahay muxuu ahaa wadada soo celinay oo barnaamijyaan qabanay dawladda Xasan Sheekh waaya hal shaqaale ay ku soo kordhisay oo maanta ay sheega karto ma jirto amnigi ayaa wuxuu noqday khalqiil oo muxuu ahay maalin walba waxa dhibaatada dhaca qaraxyada dhaca dhibaatada dhaca ballanqaadyada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku ballanqaaday dawladda oo maalinta la soo dooranayay hadii ay tahay maalinta xilka aan soo tartamay waxaan sheegay wax kama jiraan laakiin waa ila qaraxyo ma dhaca way ogyahay Soomaaliya disho loo kaliya inta boqol oo faal maalin dhimata 45 waligeed ma dhicin oo naxinta badnaa 40 October maxna wuxuu ka dhacay 14 October taasi waa musiibo rabbaani ahayd oo Soomaalida oo dhan ay dareemi kartay oo aan cidna si gooni loogu eedeyn karin laakiin madaxweynaha inuu wax walba inuu faala qaaday wuxuu karo ballan qaaday wadooyinka xiran inuusan xiran inuu dabaabaad uu koray wadadii intii oo dhan waxba kama dhicin marka ballan qaad laan macnaheedu waxay la mid tahay meesha ka aragtay anigu waxa si kale magaalada Muqdisho maanta waxaad arkaysaa in magaaladii Muqdisho ilaa iyo suuqa xoolaha ay dhagxaan lagu xiray oo meel jaaycadii la xiray oo wadada dhibaato oo hor lahayd maanta laakiin marka sugidda ammaanka marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeed oo guud ahaan dan u yahay وانا لو جهاي سوماليا دباتوين كجرا كوحا aan la aqoon ba mararka qaar dadila okay hadii ay xireen maxay qaraxyadu baaqo waayeen dhibaatadii maxaa dilkii uu baaqo waay waydan meemti warbaahin Soomaaliyeed shacabku goorma ugu dambeysay waxa lagu dilay muxuu ahaa xaafada shirka ofishala macallin dugsi lagu dilay xaafada badan maalin walba ay dhacdaa la soo bandhigina ka badan aad baad ma sintii laakiin marka loo eego dhibaatooyinkii dhici jira maanta uma muuqdaan waxyaabo fara badan inay dhacaan gel markii aan ku imaado gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka gabagabadii barnaamijkan oo isla soo gaarnay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Mursal wasiirkii gaashaandhigga ayuu ahaa 4 bilood oo joogay ciidamadii Soomaaliya oo tiitayeynteedii ay socotay dhismaha ciidamadii militariga dalka hadda waxa uu soo wareegay hogaamintii baarlamaanka waxyaabaha leedahay way hor yaalaan oo muhiim bay tahay inuu qabto Soomaali fara badan oo ku daawanaysan kulli xiseen dhaliil baa ka imaan doonta
maxay yihiin aad isleedahay way muhiim arrimahaas inuu qabto si gooni ula yimaado intaan aan ku noqdo aan wax yar kabo hadalkii mursal waxa weeyaan hadalkii waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo 27 sano kadib waa markii ugu horreysay kalimadda runtii xukuumadda iyo madaxweynaha hadda jira waxqabadkoodu 27 sano processkii socday ayagu mayna bilaabin laakiin qaybta xukuumaddii ku horreysay iyaga 4 sano soo shaqeynaysa waxa ay qabatayna halkii sano ugu horreeyay waxay qabateen ayagu hal sano iyo bar jira weli mayna qabanin madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa waxay dhiseen maamul goboleedyada maanta waddanka ka jira oo dhan ayaga asaas marka laga soo tago Puntland marka laga soo tago oo maanta waddanka amnigiisa iyo qaybo badan oo ka mid ah administrationka maamulka gacanta ku haya runtii dadkii iyo waxyaabo kale oo fara badan waa tusaalan u soo qaadan intaas dadkii waxa sameeyay hadaa tiraahid inta loo gaay aan loo noqon Sheekh Shariif iyo Cabdullaahi Yuusuf dhibaatada marayna aad ugu waqtigoona hayay kan baarlamaanka inta loo noqon hadaa tiraahid 27 sano kadib waa amal la'aanta aad sameyseen adinka ku dhacaysa intaas aan dhihla madaxda hadda maanta jirta gudoomiyaha baarlamaanka hadduu u shaqeynayo sida gudoomiyihii loogu talagalay oo uusan ahayn nin ku jira xukuumadda barnaamijkeeda iyo jeebkeeda ku jira waxa laga rabaa inuu hogaamiyo baarlamaanka kala jaban inuu marka hore mideeyo number 1 number 2 waxa laga rabaa sharciyada hor yaalla ee tirada badan in la marsiiyo baarlamaanka oo sharci laga dhigo number 3 in uu gaarsiiyo waddanka doorashadii one man one vote inuu gaarsiiyo number 4 amniga waddanka inuu kala shaqeeyo xukuumadda sidii ay ku loo xasrin aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku imaado shako horta baarlamaanka aan dib u noqono dowladda Soomaaliya baarlamaanka leh parliamentarian one madaxweynaha ayaga doorta macnaheedu marka waa hay'adda ugu sarreyso ayada la burburinay lagu duuliyay waa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaga doortay ayaga dhalay ayaga ugu sarreeya ayaga matalaadno xerosaad iyo shuruuc ay leeyihiin marka sidii loogu talagalay haduu ku dhaqmo gudoomiyahan oo ma maleynaya sidoo ku yimid baabasaas ahayn dalku wuxuu gaari karaa guul iyo horumar iyo barnaamij laakiin haddii cagsigeedu uu noqdo waxaan u maleynayaa 27 sano ay sheegayseen iyo lama sameynta iyo nimanka sooyaasha ay u duwi jireen in ka xun aan gaari doono Soomaalinimadana ceelaf weyn aad baad u mahadsan tahay shaaficada soo koobaya wali waqti kooban oo waqtiga aad noo haya maxaad oran lahayd gudoomiyaha baarlamaanka way hor yaalaan xalka dalkana waa ku jira gudoomiyaha baarlamaanka horta aniga horta ka ahan xalka ma filayo wuxuu ku imaadeen ognahay tan kalena sharciyada hor yaallo waxa ugu horeeyay baarlamaankii oo macnaha yani laba group kale ah soo isku keen lahaa maanta hadii labada dhinac ninan muxuu ahay dhinaca xukuumadda aanan ka imaan haduu ahaa lahaa oo isku keen lahaa laakiin hadda waxa cad inuusan isku keeni karin muran iyo khilaaf oo ku dhamaanayo dowladdan ay koristay dhacday sanad maba noo jiraba oo dastuurkii ay la imaatay 5 sano uu ku qoran yahay dastuurkii horena 4 sano uu ahaa oo laba dowladood iskiga daba martay waddankana ay kacni ku dhacday Sheekh Shariif adeedo ma hadsan tahay Cabdulqaadir Shaafici Cabdullaahi Ali Cabdi Maxamed iyo waliba Axmed Cabdi Shakuul waqtiga aad nasiiseen iyo sidaad barnaamijka bandhig ugu qayb qaateen dhamaanteen adinka badanada waasitay akhirteena la socotay guud ahaanba inta waxa ku dhan barnaamijkii bandhiga oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee STN anigoo Cabdilcasiis Barre waayay la socodsiinaya barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.